السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. horta waxaan aad u mahadinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo meeshan hadda maanta oo kale noo caawino keenay si aan u hambalyeeyno ma aha kaliya Professor Hassan Sheikh Mahmoud bal aan isu hambalyeeyno anaga naftirkeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala 22 sano kadib dhibaatadan soo marnay iyo mashaakilkan soo marnay inuu maaligtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshan la keeno maanta aad baad u mahadsantihiin dadka yimid aad bay u mahadsanyihiin dadka soo qabanqaabiyay shirkan iyo barnaamijkan madaxweynaheena waxaan leenahay hambalyo laakiin waxaan leenahay bal xasuuso Ilaahay subhanahu wa ta'ala sayyidina Yusuf markuu ka yiri isna Yusuf markuu ninkii u yimid maliki ahaa boqorka ahaa wuxuu yiri qaala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim marka waxaan ku dooranay Soomaali weyn waxay ku dooratay adiga isu bandhigtay Soomaali weyn inay ku doorato taasna waa wax fiican maxaa yeelay qofka markuu fiican yahay markuu ogahay inuu ummadda wax qaban doono markuu ogahay inuu ummadda dhibaatada ka bixin doono waa inuu isu bandhigaa dadka marka inni hafizun alim adiga tiri aniga waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu hafiz kaaga dhigo hafiz macnaheedu waxa waaye ummadda inuu protect u sameeyo ummadda inuu amaan geliyo ummadda inuu wixii u baahan yahay u sameeyo inuu hadana cilmi u leeyahay waxa uu shaqeynayo idaarada iyo wax walba marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay ka dhigo qofkii maaragtay ummadan ka bixiya dhibaatooyinka iyo mashaakilka ay ku jireen Ilaahay inuu ka dhigo subhanahu wa ta'ala dadka qofkii ummadan maaragtay barul amaan iyo shatu salaam geeyo insha Allah subhanahu wa ta'ala dadka waxaan sheegaynaa in la yiraahdo kalimad waxa jirto aad muhiim u ah dadkan oran doono macnaheedu waxa waaye الناس على دين ملوكهم أو كيفما تكونوا يولى عليكم تصبرنا سادتك أهاتان أي الله سبحانه وتعالى ذاتك إذن تليو هو قامياشي ذيك دقايا مركب وحانا من أنك أمد الصومالية دان هاي أما قدها يكون ولانو أما بنانها يكون ولانو إن أنك أمدها تنقلوا أمد ماركتي لا تاريخهان إيو مستقبلهان مال لديه كرو مال لقى الماركتي لو حين كرو أيان أنك أباهنهاي محايل الساد أذيك أهاتان أيو قفكي ماركتي إذن حكومة يلقون دونا قصة ماركتي كو قبينا إن شاء الله سيدنا علي بن أبي طالب أيانين مهمين وحويري بل محادو لقون ويسي سيدا أبو بكر يا عمر يا عثمان وكذا دفع في عن ماركتي وقت قاعد الدقالة إيو مشاكل محا ماركتي وكيني وحويري علي عمر يا أبو بكر وحي أتلي أنداد أنيقا وكلا أنيقا وحان أتلينا يا داد أنيقا وكلا مركا وحان تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحان كبريا يا رئيس كان إنو كدقو على خطى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن نكون نحن كذلك إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا السلام عليكم.